shirka madasha ra'i isweydaarsiga Soomaalida ku nool wadamada Geeska Afrika iyo kuwa kale oo ka socda qaybaha kala duwan ee caalamka ayaa waxa uu galay maalinkiisii labaad iyadoo maantana si rasmi ah diiradda loogu saaray arrimaha la xiriira dhinacyada waxbarashada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta bulshada ay leeyihiin marka loo eego dhinacyada kala duwan ee horumarka. مسؤولين kala duwan oo goobtaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegeen in aqoonta oo sare loo qaado ay qayb ka tahay in la helo ammaan buuxa maadaama dadku ay u baahan yihiin aqoon ay ku shaqeystaan ama waxgal u noqoto noloshooda si qofku uu gaaro isku filnaansho aqooneed. taasi waxa ay saldhig u tahay horumarka wadamada horumaray ay gaareen iyadoo oo wadamada Geeska Afrikana iminka ay doonayaan inay la jaan qaadaan horumarka ka socda caalamka dhinacyadiisa kala duwan taasoo loo maraya dhinaca aqoonta. wasiirka waxbarashada ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo telefishinka qaranka Soomaaliya ugu waramayay xarunta guriga ummadda ee dalkan Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu ka warbixinayaa kulankan ahmiyadda gaarka ah uu leeyahay. shirkan waxa laga baran karaa wax badan waan ku faraxsanahay in shir sanad walba la joogtay uu yahay. maantay aad ay muhiim u ahayd waxa lagu soo bandhigay muxuu ahaa waxaan yiraahdaa human capitalka sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta dadkeena sidii kor loogu qaadi lahaa haday tahay aqoonta iyo muxuu ahaa maadiga iyo haday tahay aqoonta oo muxuu ahaa xirfadda runtii aad looga hadlay waxa la is tusaaleeyay meesha maanta aan taaganahay markay taa timaado runtii masawir badan oo dadku aysan war u haynin ayaa la istusay waxbarashadeen meesha ay joogto waa laga hadlay weli sessionkaas waa socdaa waxaan rajaynaynaa in talooyin wax ku oola ayay waxyaan aniga shakhsiyan waxyaalaha uga faa'iiday waxay ahayd kulankii maantay inaan ummadda Soomaaliyeed ee waxgaradka aqoon-yahanada inta yimid iyo inta iyaga la mid ah maantay halkan nala joogin inay noqdaan muxuu ah wakiiladii waxbarashada dalka. sidoo kale waxaan wax ka weydiinay la taliyaha wasiirka warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliya Xuseen Jaabiri oo isna ka warbixinaya guud ahaan shirkan iyo waxa uu ku soo kordhin karo dhinaca horumarka. ahmiyadda kulankan uu leeyahay midnimada Soomaaliya in general waxay tahay in doorka Soomaalida ay ku leedahay East Horn of Africa in ma aragtay maxaa faa'iido ay ma soo kordhin karaan aqoonta ay soo kordhin karaan dadkii waa tii wadamada kala aaday dhibaatada dagaalka sokeey uu leeyahay ama nabadeynta muhiimada ay leedahay waa dad ka tarjumi kara. Cabdiraxmaan Baadiyo oo soo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed qayb lixaad la ka soo qaatay arrimaha dib u heshiisiinta gobolka Galmudug ayaa waxa uu isna ka warbixinayaa doorka shirkan uu ku yeelan karo isku soo dhawaanshiyaha bulshada. waxa ka soo qayb gala aqoon-yahano iyo waxgarad Soomaaliyeed oo caalamka kala yimid daafihiisa waxaan dhihi karnaa arintaasu waxa waaye arin aad iyo aad muhiim waxay ugu tahay anigu maadaama aan ka shaqeeyo dib u heshiisiinta in Soomaalida la heshiisiyo qayb ka mid ah halka isku imaadkooda wada sheekaysigooda inay ka hadlaan danahooda ayaga oo Soomaali ah oo dalka dibadiisa gudihiisa ka yimid gobolada Soomaaliya kullu ka wada yimiday oo shanta Soomaali ka yimid inay isku yimaadaan wax qaradkooda ay mustaqbalka dadkooda ummadooda ka hadlaan wax la heli kara ma aha arinta. waxa sidoo kale muddadii labada cisho shirkan uu soconayay si rasmi ah uga qayb qaadanay kusimaha safiirka Soomaaliya dalkan Jamhuuriyadda Djibouti isla markaana qunsulka safaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe waxaana arrimaha sida gaarka ah shirkani looga hadlayo muddada uu socdo ay yihiin kuwa dhammaanba muhiim u ah horu socodka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Geeska Afrika. Mikael Cabdirashiid Barre, Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.